madax dhaqameedyada iyo guurtida bulshada ku dhaqan deegaanada Xarshow Laasa Suurad Waqdariya iyo Galweeto ayaa shir jaraa'id oo ay maanta ku qabteen beerta xorriyadda ee magaalada Ceerigaabo waxay halkaasi qaylo dhaan ka muujiyeen boob iyo xaalufinta ajaanibigu ku hayo khayraadka badooda iyo warmacdaneedyo deegaanadaas ku yaala waxaana iyagoo arrimahaas ka hadlaya hadaladoodii ka mid ahaa waxaanu ka cabanaynaa xaalufin ku jirta badda taasoo ah in loo isticmaalayo si aan caadi ahayn waxa uu isticmaalaya Arab Soomaali loo isticmaalaya markaan idin faahfaahiyo dadku ma wada yaqaanin badda waxa loo isticmaalayaa tan markaan leeyahay si aan caadi ahayn waxa loo isticmaalayaa kalluunka laftiisa baa la iscunsiinaya waxa la yiraahdo xaawi waxa la yiraahdo caydxay xaawiga haddaan idin macnayo xaawigu waxa weeye 1 kiiloomitir shabag 1 kiiloomitir ayuu wareejinaya laba laash baa kala jiidaya birkad baa la isugu keenaya kalluunkii birkada marka la isugu keeno waxay kala baxayaan intii ay u baahnaayeen wixii kalena waa la daadinaya waa xaawiga taasi caydxay hadda baqasheen markaan idin faahfaahiyo isagoo dhintay ayaa la daadinaya deedna uu soo caariyay caydxayga markaan isaga idin faahfaahiyo caydxay waxa la yiraahdo waa kalluun la cunsiinaya caydigii oo nool baa waxa lagu qabanaya shabag ilaa 1,000 ilaa milyan mid oo caydi ah waxa lagu shubayaa isagoo nool laashka ay wataan meel ay u samaysteen waxa soo gelaya biyo bad ah oo in iyo awda mid kuwana waa ka baxayaan kuwana waa soo gelayaan halkaas ku noolaanaya kalluunku isagoo nool baa la soo saaraya isagoo nool baa jilibka la gelinaya isaga oo nool ayaa la daadinaya isagoo nool ayaa kii weena qabanaya saasa la isu cunsiinaya kalluunkii waa si aan naxariis lahayn oo waxashnimo ah waa kalluunkii deegaanka kalluunka saa la isu cunsiinaya waxa hadhaya haddii ay saa ku sii socoto biyaha oo kaliya badda ku hadhaya wuxuu daaran yahay baaqayagani maanta xeebta ilaa Galweeto ilaa Xarshow inta ka dhaxaysa oo aanu nahay waayeelkayaga kan iyo waxgaradkan iyo cuqaashan halkan maanta shir saxaafadeedka ku haysa deegaankii dadkii dhulka ku noolaa ee deegaanka u lahaa waxaan ugu baaqaynaa dawladda iyo wasiirada ku shaqada leh sida wasiirka kalluumaysiga oo kale jiriifka ay ku hayaan doonyaha Carbeed iyo kuwa la midka xaawi waxaan leenahay arrin aanu u dul qaadanayno maaha wasiir waxaanu kaloo leenahay nimanka quusaaga ah ee xamaasita ee goomaha jabinaya ee jooga deegaanka aanu ka hadlayno ee aanu la hadalay waliba oo aanu ku niri arrintaas waxa weeyaan mid dhacaysa maaha aanu u sheegnay dhaga adeegsan waxaanu leenahay hadday ka tagi waayaan dhibaatada halka ka timaada ciddii keentay iyo iyaga ayaa mas'uulka anagu mas'uulka mani deegaanka aanu ku noolahay annaga mas'uulka ah ka deegaan ahaan dadka deegaanka ku noola iyo dawladuna waa kala wargudan yihiin dadka deegaanka iyo dawladdu maadaama ay kala wargudan yihiin oo aanay xiriir balahayn ma aqbalayno dhibaatada agtayada ka socota ma qaadanayno mana aqbalayno waxaanu leenahay nala ka joojiyo sida wasiirka kalluumaysiga mana aqbalayno deegaanka aanu degno waxyaabaha wuxuusnimada ee ka socda waxaanu qaadanayno dawladana ka aqbalayno kuwa ka shaqeynaya ee imanayana aanu ka aqbalaynana ma aqalha tam ugaal kale guurti kale mid kasta ha aatee waxa laga xeeraa dicida mas'uulka anagu arrintaas hadda odayaashu hore u soo sheegeen ma aha mid laga soo xiriiray dadkii mas'uulka ka ahaa deegaanadaas waa arrin faraxal aan lagu soo galay waxaanu leenahay oo isku raacsanahay in arrintaas wax laga qabto intii aan qaloocan oo xumaan oo wax looga qabto sidii looga qaadi lahaa arrimaha dadkaas ogeysiis la'aanta ku yibi oo isticmaalaya waa in la naga qabto ilaa anagu heer wasiir heer xukuumadeed baanu dhammaan anagu baaqa u gudbinaynaa waa in si degdeg wax looga qabto haddii looga qaban waayo farahaanu isla gelaynaa wixii dhibtii dhacdana waxa ka mas'uul ah ciddii soo dirtay iyaga mas'uuliyadda qaadaya baaqa aanu halkaa maanta ka sii deynayno waxa weeyaan ujeedadiisu faragelin nala ku farageliyey oo ay nagu farageliyeen dad ajnabi ah oo aanan ogeyn reer hadduu meel yaal oo reer ku soo guuro
wardii aan kula deg uu yidhaahdaa qolqolkayagii baa mid iska guurayaa soo galay waxaanu leenahay hanala ka joojiyo haddii aan nala ka joojin wixii ka dhacay anagu mas-uul kama nihin madaxda xayatal wasiir xaaladda caynkaasi laga soo sheekeeyey badda iyo berrigaba xaalufinta loogu hayo oo kalluunka inta la soo saaro baktigiisii bannaanka lagu soo qubayo oo xeebta baktigiisii yaalyaala wixii laga qaato mooyo wixii kale foolxumooyinka caynkaasa iyo khayraadka dabiiciga ah dibadda ah intaaba raalli kama yihin waana isku raacsannahay ummadda yada meesha joogtaa oo isugu timi mana aan yeelayno kamana miis qaadanayno sheekeeyey saxaafadda maanta aanu qabanay waxay ka kooban tahay dalkaa la sheegay oo dadka ummaddaasi wada taal in waxaa la sheegayo oo badda khayraadkaa ku jira oo qaar la baktiinayo qaarna la guranayo waa in baanu saxaafadda u sii daynay naloo ka qabto oo dawladdu nooga qabato haddii ay iyadu soo dirtay iyo hadday meel kaleba ka yimaadeen in naloo ka qabto oo laga qabto oo ay naga tagaan oo wixii ka dhaca ha dhowto aan annaga naloo sheegan baanu baaqaa u sii daynay horta marka hore dawladda xidhiidh ba ma lihin dawladda mar haddaanaan xidhiidh halkan baaq baanu ka diraynaa qayladhaana waxaanu baaqaasi ku salaysan yahay xeebtii gobolka Sanaag ee bari waxaa qabsaday ajnabi meelo badan ka yimi oo khayraadkii ku jiray kunka nooc ahaa intay soo saaraan mid kala baxaya intii kalena baktigoodii ku daadinaya badda dabadeedna baktigii baa badihii qurmiyey oo xeebtii u soo baxay oo dadkii waxyeeleeyey oo xoolihii waxyeeleeyey baaqan waxaanu u diraynaa cid allaale cidda ay khusayso hadday wasaarad tahay iyo hadday madaxweyne tahay waxaanu leenahay mudane madaxweyne ka qaylin mayno annaga wax yaroo qaybtayadii dalkiiba waa baaboo baddii way baabaadeed madaxweynaha ka hay baaq u dirayna cid allaale ciddii badda wax kaga jiraan gaadiid kaga jiro ha kala bixin haddaanay kala bixin gacantaanu ula tegi doon khasaare badan baa ka dhici doon gaadiidkoodaanu qaban doon dadkooda wata baanu waxyeelayn doon ha kala bixin qoladaa wax kaga jiraan intaa la sheegay waayeelku ka soo warramay ilaa Xarshow ilaa iyo geel weyte wixii gaadiid kaga jiro khasaaraha ku dhaca isagaa ka mas'uula haddaanu hadda kala bixin wasiirka macdanta maalin walba China iyo ninbuu isku soo daraya dhulka iyaga dawladdiba ma gaadhin dabadeedna waxaa lagu oranayaa China buurtaa xulayay waa ninkan ajaanibka maxaa buuraa soo geliyo beeluhu waa adkaysan waayaan xooluhu waxa jira laba xoolayo xoolo berri iyo xoolo badeed xoolihii berri abaar baa haysa iyaga dadkii waa isla liitaan laba sanadood aan saddex roob la'aan haysa ilaahay mooyo cid wax lagala doonayaa ma jirto xooli kaydka noqon lahaa ee badda waa la xaalufinaya waa kuwa laga qaylinaya xukuumaddu midan mustaqbal ka fikirayn ba kolkii xoolaha berriguna lumo xoolaha baddana ay fasaxiisa ajnabi oo tirada xasuuqa dee muwaadiniin maa kuwa saa yeelaya taa waxaanu leenahay haddii dee aan dadka xukuumaddu dhaqaale kacayn oo ay tahay meel walba lacag urursi waa nin waliba kuwa ka buuqooy waa iska celinayna wixii soo weerara kuwa haddeer joogana waxaanu leenahay baajoon iyo khayro bilaa shuruud haddeera kaga bixin bilaa shuruud Xarshow ilaa laasatu inta u dhaxaysa ilaa geel weyte bilaa shuruud kaga bixin waqti u qaban mayno dadka aan hor joognana waxaanu leenahay baaq iyaga sugan in la taxgeliyo in la taxgeliyo saasaanu leenahay talabaad waxaanu leenahay madaxweynaha nu sheegayna golaha wasiirada nu sheegayna golaha baarlamaanka nu sheegayna guurtida nu sheegayna haddii dalka rajacadin ka hayso wax loo adkaysan karo ma hayno hargeysawna ku wad maraya badda yar waa ka buuqay haddii dawlad caamal la waayo nabad gelisa ma yeelayno annagu wasiirana meesha kuma lihin haddaan wasiirada kuma lihin beelaha iyaga halka hadlaya laakiin Soomaaliland dad ogol baanu nahay dadka iyagu waa ogol yahay hadda Soomaaliland ma arag